سلامات هذا ودياره عطبية كترسن عيدا كبوليسكا جمهورية الصوماليلاند وكو سو دوينيا حفلة حركة شركة ديبوديسكا نسمعها قيمة قلبيتكا هي سلقة دحي بوليسكا هرقيسة مدن مدحوينه madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ceerro ayaa maanta xariga ka jaray dib u casriyeyn ballaaran oo markii ugu horeysay lagu sameeyay saldhigga dhexe magaalada Hargeysa oo dhankan ah xarumaha qaybaha galbeedka iyo wardoonka ciidanka booliska Soomaaliland kaas oo la dhisay muddo laga joogo 45 sano dib u dhiskan oo socday muddo 3 bilood waxa uu qayb ka yahay qorshaha xukuumadda wadajir iyo waxqabad ee ku aadan tayeynta ciidamada kala duwan ee qaranka iyo goobaha ay ku shaqeeyaan waxa hirgeliyay hoggaanka dhismaha ciidanka booliska Soomaaliland oo kaashanaya xukuumadda dhexe iyo dawladda hoose caasimada Hargeysa munaasabad kooban oo lagu shaacinayay dhamaystirka dib u dhiskan waxa kale oo ka qayb galay xubno kamid ah golaha wasiirada barasaabka gobolka Maroodijeex saraakiisha ciidanka booliska madax dhaqameed iyo marti sharaf kale ugu horeyn taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland Saraakiil Guuto Cabdiraxmaan Cabdilaahi Xasan oo ugu horeyntii halkaas ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay dib u casriyeynta lagu sameeyay saldhigga dhexe Hargeysa isagoo sheegay in dib u dhiskan qayb ka yahay qorshaha ciidanka booliska Soomaaliland ee ku aadan tayeynta ciidamada booliska iyo goobaha ay ku shaqeeyaanba waxaana uu mahad celiyay cid kasta oo ka qayb qaadatay dib u dhiskan isagoo xusay in waaxda dhismaha ee ciidanka booliska Soomaaliland ay gacanta ku hayso saldhigyo kale oo ku yaal dalka mudane madaxweyne annagoo ka duulayna istaraatiijiyadda aad nagu hogaaminayso ee ah in ciidamada tayadooda iyo goobaha ay ku nool yihiin in kor loo qaado mudane madaxweyne waxaanu bilownay annagoo ku dhiiranayna hamigaaga istaraatiijiyadda aad nagu hogaaminayso inaanu bilowno saldhiggan dhexe iyo qaybtan galbeed ee isku jira ilaaha boqorkiina uu nagu guuleeyay oo maanta saad indhaha ku soo aragtay mudane madaxweyne sidii hore iyo si u dhow toona aan ahayn oo aanu ka qabanay dayactir aanu dhismihii hore dayactiray iyo dhismayaal cusub oo badan baanu ku samaynay mudane madaxweyne qorshaha iyagu kuma eega saldhiggan oo kaliya waxa hadda gacanta lagu hayaa oo socda waqooyiga magaalada Hargeysa wadada berbera corridor ee 200 oo magaalada Hargeysa aad ugu fiday saldhig aanu iska kaashanay annaga iyo dawladda hoose oo imika gacanta lagu hayo oo socda ciidanka booliisku waa ilaaliyaha nafta maalka iyo sharafta muwaadiniinta iyo ajaanibka sida sharciga dalka ku jooga ciidanka booliisku waa ilaaliyaha nabadgelyada iyo xasiloonida dalka ciidanka booliisku waa ilaaliyaha dastuurka iyo socodsiinta xeerarka kale ee dalka iyo kuwa caalamiga wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga Cabdulla Maxamed Carab iyo xildhibaan Barkhad Jaamac Batuun oo kamid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland oo halkaas iyaguna ka hadlay ayaa sheegay in sharaf weyn u tahay inay arkaan isbedel weyn oo muddo kooban ka muuqda saldhigga dhexe magaalada Hargeysa iyagoo xusay in saldhigyadu ay kamid yihiin meelaha laga qiimeeyo amniga dal sidaas awgeedna ay lagama maarmaan tahay qurxintoodu waxa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala aan ugu mahadinayaa inuu ka dhigay madaxweyne u soo baxay guud ahaan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo talaabadii koowaad ee aad qaaday ahayd inaad u kordhiso mushaharada ay ciidanku ku shaqeynayaan ballanqaadkaagiina si fiican u fulay maanta ciidanka sidan u qurux badan adigoo madaxweyne ah saldhigyo san noogu qurux badan marxalad ka duwareyd sanado dhaweytolo ka hor oo halkan aniga iyo wasiirka madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Khadar aanu kula kulannay iyo maanta muuqaalka ay madashan leedahay wax taariikh laga qori karayo laakiin ilaahay baanu doonaynaa inaanu ku mahadino oo aanu ugu mahadnaqno inagoo nabadgelyo haysana dawladnimo haysana adiguna madaxweyne aad tahay madaxweyne aan caro iyo ciil iyo cuqdad cidnaba u qabin waxaan jecelahay yar ka warramo saldhiggan waxaan u malaynayaa sidii loo dhisay malaa 45 sanadood inaan dib loo weegin taliyaha cusub markuu hoggaanka yimi ee talada loo dhiibay wuu ila tashaday wuxuu waxaan doonayaa saldhigga inaan bilaabo run ahaan anigu waan ka yar gowsadeegay waan ka boqo waxaan waad cusub tahay xukuumadduna way cusub tahay miisaaniyaddana kuma jirto wuxuu madaxweynaha la tashano alxamdulilaahi rabbil caalamiin madaxweynuhu isagoo ka go'an tahay
guud ahaanba inuu ciidamada amniga dhiso sidii ciidamada qaranka u soo qarameeyey ee loo soo diiwaangeliyey ayuu yidhi saldhiggaa waad bilaabaysaa waa kaa taliya fadhiya dowladnimadu shacbiga reer Soomaaliya ogaan horta waa biliiska iyo nabadgelyada hadduu maanta maayarka simada New York la yiraahdo yimaado amba ka Berlin yimaado wasaaradda arrimaha gudaha kuma soo horeynayo wuxuu hore taliska biliiska igeeya amba saldhigidiina halkaas waxay ka muuqanaysaa muraayada nabadgelyada wadanka ugu dambeyn madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ceerro xariga ka jaray dib u casriyeynta lagu sameeyay saldhigga dhexe magaalada Hargeysa ayaa sheegay inuu ka faraxsan yahay in muddo kooban isbedel ballaaran lagaga hirgeliyo saldhigga dhexe magaalada Hargeysa oo uu sheegay inuu yaraantiisii iman jiray maadaama uu aabihii ahaa sarkaal ciidan waxa kale oo xusay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ceerro in saldhiggan lagu diyaariyay adeegyadii qofka maxbuuska ahi u baahnaa waxaana uu mahadnaqay cid kasta oo gacan ka geysatay dib u dhiskiisa farxad weyn bay tahay taariikh gaar ah inaan saldhiggan maanta joogo taariikhdu waxa weeye aabbahay bilaysahay oo saldhiggan waan iman jireen oo yar aabahayna uu ka shaqeyn jiray saldhiggan muddada gaabnayd ee xukuumaddu jirtay ama taliyuhu joogay iyo sida isu bedelay saldhiggu guud ahaan qaybihiisa oo dhammi meelaha dadku lagu hayo gefka sameeya oo kor loo qaaday xuquuqdii muwaadinka la ilaaliyay in meel munaasiba lagu hayo inuu masquul helo inuu masaajid helo askarigu meel uu seexdo inuu helo waxaasoo dhammi waxaas leeyahay muddo kooban inay ku hirgalaan oo horumar sida taliyuhu sheegayay fikradda isaga lahaa laakiin waan ku dhiirigelinay inuu tallaabada qaado xukuumad ahaan waxaan kaloo mahadnaqaynaa cid kastoo gacan ka geysatay maanta isbedel weyn baa ka muuqda qof kastoo dembi sameeya waa la qaban karaa sharciga cid ka sarreysaa ma jirto laakiin dowladnimadu dawaa qorisu dhiib maanta innagaa nimi berrina qaar kala iman doona inta joogtuba markaa waajibku saarayay wixii ay qaban karayaan inay qabtaan geeska kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ceerro ayaa xusay in xukuumaddiisa ay ka go'an tahay in la tayeeyo la tababaro isla markaana kor loo qaado nolosha ciidamada kala duwan ee dalka iyadoo ay si rasmi ah u dhaqan gashay mushahar kordhintii ciidamada kala duwan ee dalka oo madaxweynuhu xusay in sanad kasta la kordhin doono 50%. xukuumadda qorshaheedana way ahayd welina wuu yahay in ciidamada la tayeeyo la tababaro mushaharadooda kor loo qaado ciidamada dhammaantood ciidanku doonaba ha noqdee mushaar kordhintii way hirgashay waxaan rajaynaynaa sanad walba intaanu joognana 4 sano hadhayna sanad walba 50% baa kordhi doona ciidamada qaranka waxaanu doonaynaa askari iyo qoyskiisuba dhaqaaleena uu yari laakiin calal aqal inuu dhaqaalihiisu kor u kaco inuu noloshiisu wanaagsanaato inuu tababarka xaq u leeyahay helo inuu cadaaladda xaq u leeyahay helo inuu dalacsiinta xaq u leeyahay helo insha Allah taala oo soo maray runtii saldhiggan iyo qaybaha iyo qaybtaba waan ku faraxsanahay maxaabiista ugu dhamaahay askartana in qaybo badan ay u baahnaayeen loogu daray meel ay ku nastaan oo munaasib ah waxaan leeyahay waxay u baahan tahay saldhigyadeenoo dhamme in wax laga qabto oo sidana loo bedelo haddii la yidhaahdo waa in muwaadinku hadduu degafo waa inuu meel ku munaasiba lagu xidhaa waa inuu masquul helaa waa inuu masaajid helaa waa inuu cibaadaystaa waan u baahannahay isagoo dhaqan wanaagsan oo xanaaqsanayn inuu bulshada ku noqdo hadhowto haddii la yidhaahdo Cabdicasiis Saciid Cilmi warbaahinta qaranka magaalada Hargeysa.